markii saddexaad ayaa la xiray Cabdimaalik Muuse Coldoon oo ah wariye samafala ah isla markaana ku nool magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Haddaba muxuu salka ku hayaa xariga Cabdimaalik Muuse Coldoon? Cabdimaalik waxaa lagu qoonsaday dhiiranaan iyo in uu toosh ku ifiyo saameynta ay dowladda Ethiopia ku lahayd Somaliland, waxaanu aad u dhaliilay fikir ay qabaan madax ka tirsan maamulka Somaliland kaasi oo in dalka Ethiopia uu yahay xabiibka koobaad ee Somaliland, halka taa beddelkeedana qaybaha kale ee dalka Soomaaliya ay yihiin cadawga Somaliland. Cabdimaalik waxaa laga dhadhamiyay fikir Soomaali jacayl ah, iyadoo Somaliland qofkii soo hadal qaado Soomaalinimo uu yahay qof halbowlaha ka toogtay goon istaaga iyo doonista dal madax bannaan. waxaase telefoon ka hadlay markii Coldoon uu u sudcaalay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho sanadkii 2017 xilligaas oo la doortay madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. wax yar uun kadib markii uu ku laabtay Hargeysa ayaa xabsiga loo taxaabay, waxaana xarigiisa sabab looga dhigay booqashada uu ku tagay magaalada Muqdisho. waxaa jirta arrin kale oo xasaasi ah oo Coldoon ku dhiiraday in uu ifiyo, taasi oo ah iskuulka Abaarso oo dadka maalgeliya ay ku jiraan dad ku caanbaxay fal qoomuluudnimo ah, iyana meesha lagama saari karo in ay qayb ka tahay xariga wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon. dhibka ugu weyn ee Coldoon lagu haysto marka la soo ururiyo waa Soomaali jacayl, waxaase isweydiin mudan maxaa madaxda iyo shacabka Soomaaliyeed ay kala socdaan dhibka uu dartood u mariyo wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon.